Assalaamu calaykum meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaa caawa furmi doona tartanka horyaalka English Premier League iyadoo lagu furi doono kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace. Azpilicueta oo albaabada ka xirtay kooxda Barcelona xilli uu doorbiday in heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Chelsea. Marco Corella oo tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Chelsea. Jekolo saadalay halka Manchester United ay kaga dhameysan doonto xilli ciyaareedka cusub. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe, like, share si barnaamijkeena uu gaaro asxaabo kale. Ugu horeyn aan ku hormarno kulanka furitaanka horyaalka English Premier League. Waxaa bilaabanaya xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka English Premier League waxaana lagu furi doonaa kooxda Arsenal oo marti u noqon doonta kooxda Crystal Palace. Kulan ka dhici doona garoonka Selhurst ee kooxdaas ay ku ciyaarto. Arsenal ayaa kulanka soo galaysa iyadoo si fiican ugu diyaar garowday xilli ciyaareedka cusub isla markaana doonaysa in ay guul ay ku bilaabato horyaalka English Premier League. Dhanka kale Crystal Palace oo Arsenal garaacday kulankii ugu dambeeyay ay ku kulmeen Premier League ayaa doonaysa in ay Arsenal mar kale ay garaacdo. Kulanka Crystal Palace iyo Arsenal tartanka Premier League waqtiga waa 10 habeenimo garoonka Selhurst ayaa lagu ciyaari doonaa. Xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay kulankana Crystal Palace ayaa laga badiyay kaliya hal kulan oo kamid ah 8 kulan ee ugu dambeeyay ay la ciyaartay kooxda Arsenal ee Premier League 2 gool iyo 5 barbardhac iyadoo Crystal Palace raadinaysa guushii labaad oo xiriir oo ay ka gaarto kooxda Arsenal kadib markii ay 3-0 ay ku garaaceen bishii Abriil. Xilli ciyaareedkan ayaa ah midkii saddexaad oo xiriir oo ay Arsenal Premier League kulanka ugu horeeya ay la ciyaarto koox reer London iyadoo 3-0 uga badisay Fulham xilli ciyaareedkii 2020 ilaa 2021 halka guuldaro 2-0 ay kala kulmeen kooxda Brentford xilli ciyaareedkii hore. Kulankan ayaa noqon doona midkii shanaad ee taariikhda horyaalka English Premier League bilowda habeenka Jimcaha iyadoo kooxda martida loo yahay badisay dhammaan kulamadii habeenkaasi ay ciyaartay. Kooxda Arsenal ayaa laga badiyay kulankeedii ugu horeeya ee bilowga xilli ciyaareedka cusub 5 kamid ah 9 kulan ee ugu dambeeyay ay ciyaartay. Cesar Azpilicueta oo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Chelsea isla markaana albaabada ka xirtay kooxda Barcelona. Kooxda Chelsea ayaa xaqiijisay in kabtankeeda Cesar Azpilicueta heshiis cusub u saxiixay kooxda Chelsea. Xidiga Azpilicueta oo si weyn loola xiriirinayo inuu isaga tagi doono kooxda Chelsea suuqa xagaagan ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub. Cesar Azpilicueta ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo 2 sano oo ku sii joogi doono kooxda ku ciyaarta Stamford Bridge. Heshiiska cusub ee Cesar Azpilicueta ayaa la macnaa in xidigan uu albaabada ka xirtay kooxda Barcelona oo aad u doonaysay saxiixa xidigan suuqan kaliibsiga ciyaartoyda. Xidiga Marco Corella ayaa haatan tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Chelsea sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya London. Kooxaha Chelsea iyo Brighton ayaa wada hadallo ku jira si ay uga heshiiyaan saxiixa xidigan daafaca bidix uga ciyaara kooxda Brighton ee Marco Corella. Saxafiga Fabrizio Romano ayaa haatan sheegaya in xidiga Marco Corella uu haatan ku sugan yahay magaalada London si uu tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda Chelsea. Xidiga Marco Corella ayaa haatan ka harsan in uu noqdo xidiga Chelsea tijaabada caafimaadka iyadoo kooxda Chelsea ay ku dhawaaqi doonto. Xidiga reer Spain ayaa qalinka ku duugi doona heshiis 6 sano ah oo ku joogi doona kooxda Chelsea ilaa xagaaga 2028. Jekolo saadaliyay halka Manchester United ay kaga dhameysan doonto Premier League. Xidigii hore ee Liverpool ee Jekolo ayaa aaminsan in Manchester United aysan ku dhameysan doonin 4 boos ee ugu sareysa Premier League xilli ciyaareedkana. Xilli ciyaareedka Premier League ayaa bilaaban doona caawa oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace. Manchester United ayaa xilli ciyaareedkana ku bilaaban doonta garoonkeeda Old Trafford iyadoo Erik ten Hag kulankiisa Brighton uu hogaamin doono uu yahay kulankiisa ugu horeeya ee Premier League.
Manchester United ayaa booska lixaad kaga dhameystay xilli ciyaareedkii hore ee Premier League. Cole ayaa sheegay in Manchester United mar kale ay seegi doonto kulamada loogu soo baxo tartanka Champions League. Waxaan aaminsanahay in Manchester United sanadkan aysan ku dhameysan karin boosaska sare ee loogu soo baxo tartanka Champions League. Waxaana uu sheegay in Manchester United laga sugayo xilli ciyaareedkan isbedel weyn. Inkastoo Manchester United uu sheegay in suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ay ka qaateen xidiga badan, waxaana uu sheegay in ay mar walba ay ka sarmari doonaan kooxaha Arsenal, Chelsea iyo Tottenham. Ayuu hadalkiisa sii raaciyay xidigan. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka.